Assalaamu calaykum waraxmatullah. Muuqaalkan waxaan ku daafuri doonaa barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay 5 daqiiqo ku baro oo aan ku soo qaadan doono mowduucyo aan isdhahno waa muhiim in wax laga ogaado. Maanta waxaan uga hadli doonaa macluumaad ku saabsan dunida. Dunida waa meel aad u baaxad weyn oo ay ku nool yihiin nooleyaal aad u fara badan sida bini'aadamka, xayawaanada iyo dhirta. Balse inta aan mowduuca u guda gelin aan wax yar ka sharaxno dhammaan koonka aan ku noolnahay. Koonka ama Earth waxa uu inta badan ka kooban yahay 3 curiye oo kala ah: oxygen, silicon iyo iron, taas oo ka dhigaysa mid uu eebbo ugu talagalay in lagu noolaado. 70% dhulka waxaa ku hareeraysan biyo, taas oo ka dhigaysa in kaliya 30% ay tahay barri ama meel aan biyo lahayn. Aan dib ugu soo laabanno mowduuceena caalamka. Dunida ama caalamka dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 7.5 bilyan ilaa 7.7 bilyan oo ruux. Wadamada caalamka waxa ay gaarayaan 197 wadan marka lagu daro dowladda Falastiin ee dhulkeeda xoogga lagu haysto. Wadanka ugu dambeeyay ee loo aqoonsaday inuu dowlad noqdo waxa uu ahaa dalka South Sudan. Sida la wada ogyahay, caalamkan aynu ku noolnahay waxa ugu dhul weyn Russia oo badkeedu gaaro 17 milyan kiiloomitir square ah. Russia xitaa haddii 7 milyan oo square ah dhulkeeda laga jaro, waxay sii ahaanaysaa halka ugu weyn caalamka. Marka loo fiiriyo Canada oo ah wadanka labaad ee ugu dhulka weyn caalamka, waxayna badkeedu gaarayaa 9.8 milyan square ah. Haddii aan aragnay wadanka ugu weyn caalamka, waxaa lagama maarmaan ah in aan fiirino kan ugu yar, waana halka loo yaqaan Vatican City. Waxayna bad ahaan fadhisaa wax ka yar 0.44 milyan oo isku wareeg ah. Waana xarunta ugu weyn ee looga taliyay kaniisadda Kaathooliga ugu weyn. Dhanka dadka waxaa ugu badan wadamada China oo ay ku nool yihiin 1.4 bilyan, iyo Hindiya oo ay dadkeedu gaaraan 1.3 bilyan, taas oo u diiwaan gelinaysa labadan dowladood inay ku nool yihiin 35% dhammaan dadka ku nool caalamka. Halka dadka ugu yar caalamka ay ku nool yihiin wadanka Vatican oo waxaa la qiyaasaa in ay ku nool yihiin 800 oo ruux oo kaliya. La yaab kuguma noqonayso maadaama aan hore u soo sheegnay in ay tahay dowladda ugu dhulka yar caalamka. Dhanka diimaha, caalamkan aynu ku noolnahay waxaa ka jira in ka badan 4,000 oo diin, balse waxay dadka ugu badan haystaan diinta Kirishtaanka oo ay aaminsan yihiin 2.4 bilyan oo qof, halka diinta Islaamka oo ay aaminsan yihiin 1.9 bilyan oo qofood, iyo Hinduismka oo ay haystaan 1.1 bilyan oo qofood. Sidoo kale, caalamka diinta ugu faafidda badan waa diinta Islaamka, waana diinta loogu raacista iyo loogu dhaqanka badan yahay dhammaan caalamka. Wadanka ugu badan ee laga aaminsan yahay Kirishtaanka waa Mareykanka oo waxaa rumaysan in ka badan 230 milyan oo qofood. Wadanka ugu badan ee diinta Islaamka laga haystana waa Indonesia oo ah guriga 219 milyan muslimiin ah, halka Czech Republicna ay tahay wadanka ugu badan oo ay ku nool yihiin diin laawayaasha caalamka. Dhanka dhaqaalaha, caalamka waxaa hogaaminaya dalka Qatar oo ah wadanka ugu hodansan caalamka. Dalka ugu dhaqaalaha yarna waxa uu ku yaala Afrika oo waxaa lagu magacaabaa Democratic Republic of Congo. Magaca ugu dheer caalamka ee goob ama magaalo loogu yeero waxa uu ka kooban yahay 85 xaraf, halka xabsiga ugu xun ee caalamka uu ku yaala dalka Brazil. Marka loo fiiriyo maxaabiista sida loola dhaqmo iyo inta qofood ee sanadkii ku dhimata, dagaalka ugu dhimashada badnaa caalamka waxa uu ahaa dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana ku dhintay in ku dhow 100 milyan oo ruux. Waxaana dagaalkaas bilaabay nin lagu magacaabo Hitler, waxa uuna bilowday sanadku markuu ahaa 1939, waxa uuna dhamaaday 1945. Magaca ugu caansan caalamka ama loogu labxista badan yahay waa magaca rasuulkeena Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa mowduucii aan uga hadlaynay caalamka. Mac salaama.